xafada waxaan u sheegayaa iyo dadweynaha goobtan waa goobtii shilku iyo dhibaatadu ka dhacday waa gurigii hantidaan aan ku lahayn waa gurigii tiknikada iyo budlay nagu soo weeraray wiilasha meeshan ku dhintay iyo dhibaatada meeshan ka dhacdayna eedan u ahaa caruurtayda la dhasheen waxa weeye goob khamri maaha dukaankan aad arkaysaan waa dukaankii meherada iyo ii ahayd goob khamri iyo goob faasuq ilaahay baan ka magan galay wixii waxa ku safeeyayna ilaahay wajigiisa la hortagayaan waxa weeye wiilashaas halkaasaan ku shaahaynay halkaasaan fadhinay tireefyada ayagoo layr lahayn bay halkaas naga soo galeen koonfurta xigta layr ma lahayn kadib waxa weeye way kala daateen shan bay ahaayeen ayagoo cidna waxba weydiin ayagoo magaciisaba qoryihii wada furteen halkaas waxa weeyaan hubkii ka dhacay wiilashu waa wada fadhiyeen waxaan dhalay wixii nala dhashay wixii reerku la dhashay intaba maatadii ciyaalkii waxa weeye halkaas gabar xun oo dhalatay baan dhabta ku hayay anayeeyo u ahay halkaas dhibaatadii ka dhacday meydka iyo dhaawaca waxaan dhaqayno waxaan guriga ku yaala dhiiga tan iyo doraadii ilaa shalay dhaqayno guriga firirkiisa iyo meeshiisa wali ku yaala gudaha baabay meydku halkaas ka dhacay halkaas lagu laayay raga halkaas lagu laayay hada waxaan u sheegaynaa wixii ka dhacay xaqiiqatan waa intaas haday si kale iyo safaalo kale u badasheen ayaka ilaahay wajigiisa la hortagin qola khamri qola faasuq qola muxuu ahayd muqaadiraad midna ma ahayn ilaahay baan ka magan galay dulmi baa loogu laayay hub naloogu muxuu ahayd foolax gootamay oo horayna nalagu laayay hadeertana hamay horena lagu laayay baa waxa weeye dadkaas ku dhintay maatadayda gurigayga oo dhan waa baabaasan yahay waxa la yahay jaan xuruse waxaan ahay dadka ganacsatada oo meeshaan goobjooga ka ahaa anigu waxaan shaahidtu ahaa ilaa baabuur 5 xaba ah oo waxay ka soo baxeen dariiqa warshadgali afar dhinacaan u soo leexatay gaarina xaggaas u leexday ayagoo aan waxba hawl garayn oo waxba waxa weeye dad instaan bay gelin oo qamro aan baarin baan waxaan xaqiijinayaa baabuurta ayagoo ciidanku markuu ka daatay iyo markay dabka fureen isku mid bay ahaayeen waxay rideen dhashiikayaashii beekeemiyadii aakihii wixii meesha yaalay kulli way isticmaaleen waxa halka ka dhacay waxaan diinta islaamku aan oo aysan qabin wax dhaqanka muslimka aan ku fiicnayn baa halka ka dhacay waxaan cadaynayaa inaysan hawlgal ahayn qamro iyo midna aagaan dad shacab degan wadanka qabrada lagu gado waa la yaqaanaa meeshan waa xaafad waxa weeye business oo ganacsi ah oo laamiga ah waxa weeye laamigaas bay nimanka ayagoo yaacay yimaadeen rasaas bayna ku fureen waxaanu ka war helnay anagu war kamaanay laakiin waxaanu ka war helnay qori ay kala qaateen loo wiilo dhalinyaro ah inay arintaasi ay ka dhalatay oo waliba loo muqaabaleeyo boolisku gacanta qoriga ku hayay inay arintaasi ay ka dhalatay oo qorigii la yiri wiilkii dib uu ku dhuftay dibka ka soo garbax oo yiri wiilkii intuu la soo hadlay maanta niman meedan qoryaha ka qaadanaya arintaas baanu ka war helnay arintaas ay ka dhalatay dad shacab ah oo maata abana la xasuuqay waxa weeye aniga waxa weeye hortayda xabada ka ridayay intaasaan ku ogahay waxa meesha ka dhacay wax diinta ay qabto ma ahayn wax dhaqanka islaamka ku fiican ma ahayn wax Soomaalida dhaqankeedana oo lagu arki jiray ma ahayn waxaanu rabnaa wixii wax ka qaban kara inay arinta wax ka qabtaan meeshaan waa controlkii dhinaca koonfurta ku yaalay meeshaan waa stationkii saligi weeye Puntland weeye waxyaalaha la geystay gaariga baabuurta wuxuu kamid ahaa meesha taalay oo waliba si nolol sheegay macdarka la gadayay buu kamid ahaa oo meesha lagu gubay sidoo kale qolaan saliga hadan wareysanay hortooda shil ka dhacay ma ogeeno iyo laftan la soo weeraray moodeen gudaha ku jireen gaariga hortooda lagu joogo jeedaan gaarigana waa kan saligiina waa kan hadda waxaan soo marnay meeshan ka horeyso raga lagu laayay waxaan dareemaynaa meeshan waxa ka dhacay wax ula jeeda bay ahaayeen waxa lagu marsaday waxa la sheegay midna ma ahayn waxaan wareysanay warbixintan goobnay ahayd askarta nin kamid ah oo kamid ah ciidanka ninka ay tahay qaybka muumin waardiyeeya in qor laga qaaday hami hore oo nin dhalinyaro intay qabteen qor ka qaadeen ka bacina amar uu ku baxshay maadaama qorga tahay qaybka amarkiisa uu maqan yahay in meesha la weeraro saad ogtihiin meesha la weeraray dad ku dhintay dad family ahaayeen caruurtii baa dhex joogtay maamooyinkii baa dhex joogay ikhtiyaartii kale dhalinyarada wax baranaysa dhex joogtay dad family ahaayeen lagu talagalay sida nolol sheegay wadadan 5 gaari baa ku timid 5 gaari habaday bilaabeen gadaalna 3 gaari baa ka timid oo dhabarjiin oo madaxtooyadu leedahay
meeshaan waxa ka dhacay wax noocaas ahayeen ma ahayn wax cid gaar ah lagu dan lahaa khamro lagu baacsanayay waxaad u jeedaan target inay tahay garsoor ku wajahan inay tahay target xaafad ku wajahan maxaa yeelay waxa la laayay dadkii carruurtii guriga joogtay baa la laayay labada wiil dhimatay xaafaday ka tirsanayeen guriga uu ka xabay joogeen sida loo sheegay bay ka tirsanayeen maamada soo kale meesha joogtay ilmay gacanta ku haysay dhabta ku haysatay anu gudahan ku carartay wiilasha meesha fadhiyay saas ku dhinteen shilku ugu dhacay waxaan u sheegaynaa dawladda federaalka iyo inta kale oo saxaafadda ama xiloo wadaagta ama islaamka la u sheegaynaa dagaalkan dagaal wajahan oo loogu talagalay xaafadda garsoor oo qaab u ah kol ayaa ka warbixin doona laakiin loogu talagalay family loo waday oo loogu talagalay bay ahayd ma ahan dagaal ku wajahan khamro ku wajahan ma ahan dagaal amni ku wajahan dagaal qorsheysan oo mas'uuliyadda uu lahaa taliyaha qaybta iyo ninka la yiraahdo ciidanka madaxtooyada oo dani meeshan keensaday bay ahaayeen laakiin waxaan lagu maslaynayo oo lagu sheegaya wax nooc untama iyo waxna qaatay midna ma ahan hawshaas qorigaas ahayd cidda iskale oo shilka geystay hebel baa loo yaqaanaa cid hadda cid u qarsoon ama ka qarsoon ama noo qarsoon ma ahan haddii habeen la soo waray haddii maalin la soo weeraro waa nagu dhici jiray waad ogeydeen cidda maanta dagaalkan inoo geysatay waa cidda 2011 inoo soo weerado saas kor ugu soo weeraday oo gartara cad halkan ugu leeyahay barqada ugu soo weeraday way magacayga waxa la yiraahdaa Cabdinaasir Faarax lagu jiray waxaan ka mid ahay odayaasha degan xaafadda garsoor qaas ahaan laanta koowaad waxaan ka rabaa inaan ka warbixiyo dhibaato naloo geystay habeen hore sabtidii bacdal cishe 2 saac iyo bar oo bishaan ku aadaneed 12ka bisha 7 dhibaatadaas waxaa noo geystay ciidamada Puntland oo ku soo duulay xaafadan garsoor nimankaasi waxay wateen baabuur badan oo teknika ah qaar wuxuu ka leexday Al Rahma Hotel Rahma wuxuu qaaday wadada laamiga ah aada Aaran qaarna wuxuu soo maray wadadan Xamar aada ayuu soo qaaday xaafadda inta u dhaxaysa waxa loo qaybshay nimankaasi wax allaale waxay hub wateen baasuuke qoriga la yiraahdo dhashiike beerdalool aake wax allaala waxay wateen bay u qaybsheen markay naxasuuqeen oo raggii laayeen oo sabab la'aan ku laayeen oo guryihii sidaad arkaysaan u gubeen waxay ku andacoodeen qamri baan aruurinaynay qamriga in la aruuriyo annaga raalli ka ah sooma ay wargelinin meesha waxa ku yaala saldhig bulays oo aniga hadda midigta iiga beegan ma ay soo wargelin kontaroolka waxa joogay ciidan Puntland ma ay soo wargelin hadday yimaadeen war gurigii meeyay qamriga lagu gadanayo ma ay dhihinin say u soo socdeen bay hubkaas sii daayeen wax allaala waxay arkaanna waxa suuqeen meediyahana waxay geliyeen waxaanu laynay alkoolistayaal waxaan soo qabanay qamri waxa jira marka oo tan ka horeysay sanadkii 11dii nimankaasi sidaas oo kale noogu soo duuleen markay dadkii xasuuqeen bay waxay yiraahdeen waxaanu laynay al-shabaab waxaan laynay argagixis waxaanu laynay asal raac waxaanu laynay ittixaad saasay yiraahdeen haatanna waxay yiraahdeen waxaanu laynay alkoolistayaal barina waxay oran doonaan ma aqaan mindhaa wax kale soo sameynayaan waxaa jiray nin reer bariya oo ka mid ahaa ciidanka dadka laynahaya nin garanayay baa wuxuu ku yiri war maxaa dadka loo laynahaya hadda ka horna waa xaafadii sidii loo laayay wuxuu yiri arbaawa waa fufeen buu yiri aal isku gaabinaya waa fufeen buu yiri baa la gaabinaya saasuu ku yiri wax la qaadan kara ma aha waxaas wax la aqbali karana ma aha hubka iyo rasaastana la ku leenayana waa tii laga soo bixiyay cashuurta annaga nala ka qaado waxaanu u sheegaynaa ummadda Soomaaliyeed waxaanu u sheegaynaa dadka islaamka waxaanu u sheegaynaa caalamka waxaanu u sheegaynaa jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa waxaanu u sheegaynaa dhammaan inta danaysa Soomaaliya oo ku dadaashay ammaankeeda inay ka shaqayso inaanan arrintaas aqbali karin dhibaatada intaas leegna naloo geystay waxaanu dadka degan magaalada Gaalkacyo ka codsanaynaa intii sama jecel ah oo arrintaas dhacday ka xun
inay arrintaanu istaagto in la soo xirxiro dadkii arrintaas soo abaabulay saraakiishii ciidanka wadatay kuwii ciidanka ahaayoo dadka Soomaaliyeed xasuuqay in la xirxiro maxkamad in la keeno nin walbaba waajibka uu leeyahay in la mariyo oo loo kala xaqaado ummadda Soomaaliyeed intaasaan ka codsanaynaa waa mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh